ganacsatada asxaabay maanta waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo dhibaatooyinka haysta ganacsatadeena ku nool kililka shanaad ama deegaanka Soomaalida taas oo mar walbaaba markay wajaala wax u doontaan ay wajaala ku gumaysato dollarkiina inta badan anaguna aanan arigeena iyo wixin aanan siisan oo lacag Ethiopian intay wajaala gasho kabacdina ay ku dhahayaan lacagtaadii waxba ma tarayso taadiina ay hadhow doonayaan inay ari iyo wax walba kaaga iibsadaan waa lacagtaadii banaanka u baxday ee adigu u geysay adiguna markaaga hadaad dhihi lahayd sida bisha carafo keena dollar ariga maxay samayn lahaayeen talow hadda kadib waxayna dollar aan siisano saylad gaar aan samaysano niman dollar wadanina iyo naan arigeena ka iibinin haddana mid baaba jirta